السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka waxaa igu furan project cusub oo yani aan ku hadlayno wax loo yaqaano React Hooks inagoo markaa soo koobi doono insha Allah oo sharxi doono basics React Hooks si markaas hadhow aan ugu sameyno markaa projectska. So muhiim waxaa ah kaliya inaad fahamtid qaabkay u shaqeynayaan, then projects aa lagu dhisi doonaa insha Allah. So projectska markii lagu dhisayo iyadana inaad sii fahantid insha Allah. So waxaa soo furataa meel cusub ama project kala sameyso oo saa u sameynayna u samey ama meeshii projectii ahaa basicska ku wad. Okay, so labadaba waa caadi, laakiin saa ujeedaan aniga waxaa soo furtay meel kale oo cusub. markaa soo kicin doonaa waxaan dhihi doonaa npm run def, kadib waxaa lagu soo furi doonaa sida caadiga ah localhost 3000 5173 طبعا 3000 inta badan React caadi ah loo soo furaa. So waxaan ku sameeyay file-ka. Okay, marka meesha waxaan sameynaynaa sida caadiga appkii ayaa markaa qoranaynaa oo keliya oo wixii kale waan ka bixinaynaa. meeshaas aa ujeedaan tailwind css aa soo geliya, laakiin hadda right now tailwind css uma baahnin. appkana mainkana dabcan sidiisu ahaanaya. So I think kan unbaa waxaa sameeyey inaa wixii ka tirtiray oo aan markaasi aan kusoo reebay in markaa macquula. Okay, so React Hook marka muxuu yahay si aan u sharaxno marka laba dhinac kala dhigi doonaa browserka iyo markaasi codekeena. Okay, marka React Hook informationka inta badan waxaan sameynaynaa inaan soo qaadano si aan xogo yar u sharaxno sidoo kale aa u fahantaan. So React Hook marka waxaa waaye Reacti waxaa la isticmaalaa tusaale kale si loo maareeyo qoraalada kala duwan, waxyaalaha isbedbedelayo si page dynamic u noqdo, waxyaalo badan isbedbedelaan oo qofka hadduu button ku dhufto kale wax isbedelaan oo kale, waxyaalahaas oo dhan markii la isticmaalayo waxaa markaa la isticmaalaa React Hook. So tusaale kale markii API ama application programming interface oo loo yaqaano in markaa datada tusaale pagin data kale data laysoo akhriyo ama xitaa API-da caadiga jira online in markaas lala tacaamulo, waxyaalahaas markii la sameynayo waxaa la isticmaalaa React Hooks la isticmaalaa. input kale markii wax isbedelayo kale waxyaalo badan ayaa markaa loo isticmaalaa React Hooks. marka React Hooks markii way badan yihiin ilaa iyo dhowr weeyaan. So marka inta u muhiimsan ilaa 3 camal aan ka qaadanayna insha Allah. React Hooks marka must be written inside a component. So marka qoraysid waa inaad component dhexdiisa aad ku qortaa, like meesha bracket-kan yani return-ka maahan, waa meeshan component dhexdiisa waa inaad ku qortaa yani inside the component. number 1 waxaa waaye inaad components aad ku qori karayso. marka isla markaa waxaa fahmi karaynaa inaan u gudubno component React Hooks kale midka ugu caansan gaar ahaan use state. marka React Hook ugu caansan waxaa loo yaqaanaa use state. sida caadiga waxaa dareemaysaa use state-ka in loo isticmaalo in loo maamulo stateska ama xaaladaha kala duwan. waxay rabto ha ahaato ama numbers ha ahaato ama logic kale ha ahaato, waxay rabto ha ahaato. So xaaladaha unbaa lagu maareeyaa. So kan marka wuxuu soo celin doonaa value of state, xaaladda markaa la marayo qiimaheeda ama number ha ahaato ama true and false ama wax walba value walba u isticmaali kartaa. wuxuu kaloo soo celin doonaa status of state value. values ay wuxuu siinayaa state of value value ay statekaas ay wuxuu siinayaa value ayuu siinayaa. yani value taalo kale hal waaye, centerkana wuxuu bedelayaa halkaas ayuu markaa bedeli doonaa oo center loo yaqaanayo. So this is the one that changes everything after we change it manually. So kan waxaa waaye oo hadda sheedana centerkan kan labaad waa kan wax bedelayo markaan manually si gacanteena ama button ama something aad ku dhufano si state-ka ama wax isbedelaan kan bedelayo waa qaybta labaad. marka inaan sameynaa u baahannahay marka ugu horeyn waa soo import gareynaysaa from React. marka waxaad leedahay import brackets kana dhex gelinaysaa, waxaan leenahay marka use state from React. Okay, marka saa soo import gareysid halkan ayaa ku bilaabaysaa marka inaad
aad ku samayso marka waxaan leedahay meeshaan react hooks okay use state marka meeshaan aad ku bilaabaysaa marka inaad ku samaysid haddii aad intuusa marka labo qayb ka kooban yahay lagu dhahay qayb value ah iyo qayb soo celinayso qayb function ah oo setter loo yaqaano oo wax bedelayo marka waxaan leenahay constanty hadda waxaan siinaynaa hal name siinaynaa si aan u aragno labadaas qayb si yani consoleka ku arkaynaa kadib waan kala saaraynaa waxaan leenahay status hadda hal xabaa ka dhiday so laba xabaa ka dhidi doonaa kadib waxaan dhihi doonaa use state saa usoo import gareeyey esta waa capital use state okay esta waa capital then bracket aa furaynaa meesha marka waxaa la geliyaa bracketka kadib meesha waxaa la geliyaa marka initialization value aad ku bilaawaysid ama qiimo aad ku bilaawaysid empty waa uu tagi kartaa laakiin qiimana waa ku bilaawi kartaa sida caadiya true sida caadiya false whatever aad ku bilaawi kartaa okay so tusaale kale waxaad dhihi kartaa true waxaad ku bilaawi kartaa number waxaad ku bilaawi kartaa object and array whatever aad ku bilaawi kartaa value walba ayaad ku bilaawi kartaa so hal mar marka aan soo daawacana si aan u aragna statuskan qaabka uu shaqeeyo si aan markaasi aan u sameyno ama aan dee usii practice gareyno okay so console solver then marka waxaan arki doonaa refresh kale inta badan reacti waxaa isla markii inuu aqoonsanaa laga yaabaa just waxaa u baahan tahay so meeshaan fiir marka waxaa naloo soo saaray laba oo area naloo soo saaray 0 iyo 1 aa naloo soo saaray marka 0 waa value ama qiimaha oo loo yaqaano true waay okay kanna waa function oo bedeli doono truedaas iyo valuedaas okay tusaale waxaad dhihi kartaa constanty laakiin waxaad dhihi kartaa value marka waxaa noqonaya status kadib array kadib 0 kan koowaad waxaa waaye value waaye kan labaad oo 1 noqonaya yani array wuxuu ka bilowdaa 0 kan kalena wuxuu noqonayaa setter function ku noqonaya marka oo hadhow value aan wax ka bedbedel lahaa tusaale hadda haddii aad soo daawaco value-ga wuxuu noqon doonaa true aa gelinay dabcan halka setterkan uu noqon doono yani function okay so let's see meeshaan marka waxaa ujeedaa kan wuxuu noqday true kan wuxuu noqday function oo bedbedeli doono marka truedaas ayuu bedbedeli doonaa so like button aa dhex gelinaysaa so buttonkaasa mar walba bedbedeli doono okay meesha u baahan tahay yani wax walba noqon karaa number noqon karaa everything waxyaala aad iyo aad u badan aa loo isticmaala setterkan value si qiimo looga soo qaado waxyaala badan yani waa practice gareynayna insha allah so meeshaan marka haddaa fiirsaan sida mar walba looma sameyn karo yani hal state ama hal hook saddex sar ma laga dhigi karo sida bacan so marka waxaa sameynaysaa meeshaana array ahaana destruction aa ku sameynaysaa waxaan leedahay marka value-ga comma setter okay like sidaan aad sameynaysaa so marka saan wax kuu suurgelinaysaa in aad markaa labadoodaba aa heli karaysid okay so waxaa filayaa darta inaad fahmaysaan because hadhow 0 iyo 1 uma baahnin inaan mar walba aan dhahno just hadda waxaa array meeshaan gelinay waxaana dhamnay value iyo setter ayaa dhahnay so marka value-ga iyo setterkiisa marka waa kanaa so hadhow magaca caadi u bixinaysaa laakiin hadda rayna waxaan rajeynaa inaad fahmaysaan like hadda soo daawaco sidaadoo kale ayuu markaa usoo bixi doonaa value meeshaan waxaan dhihi doonaa setter so like waxaa arkaysaa in uu sidii uu soo baxayo okay value waa kana setterkana waa kana marka waxaan rajeynaa hadda inaad fahanteen use state-ka iyo qaabka iskula jiro iyo qaabka marka uu shaqeynayo marka right now si practically ayaan u practice gareynaynaa